gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka Home Cable ayaa nasiib darro ku tilmaamay go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku joojisay cilaaqaadka dhinaca ciidamada ee Imaaraadka Carabta waxaana uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka abaalka dartay caawimada Imaaraadku siin jiray Soomaaliya oo ay ku bari furtay marka hore waxaan aad iyo aad aan ka tacsiyeynaya kana apologize garanaya dawladda Imaaraadka falk ee walaalahay Soomaaliya walaalaha falka xun iyo idab darada xun ee kula kaceen Soomaaliya kula kacday madaxda Soomaaliya waa lagu yaqaanaa madaxda Soomaaliya in mar kastaba gacanta wax siisay qaniinaan waa caado ay yaqaanaan tii bay ku celiyeen muumay kala harin wala reer Garowe iyo Muqdisho siba wala isticmaaleen dalka Imaaraadka oo ahaa dalka qura ee Carbeed ee inoo furay khadka markii dawladda siyaad burburtay ee Soomaaliya isku qasantay baasaboorka ogolaaday baamisharigeeni furay oo maanta aragtaysa inta baamisharaga joogta takadihiina camiray haddana macaawino ugu daray Soomaaliya hada sheey taga sheekeynayay magaalada Saay Cabdigaaska Garowe maamula iyo wixii lagu sameeyay waxaan u jeedaa dadka Imaaraadka dadka Soomaaliya shanta Soomaaliya way degaan shanta goobood ee geeska Afrika anagu waxaan nahay dadkii la bilaabay aabayaashood markii gacaanku naga eriyay laga qaxay mutacalimiinteeda iyo dadka halkan ku baxsan waxay Imaaraadka ilaa Sheekh Said la shaqeynayay wasaaradda ka shaqeynayay edebta lahaa wanaaga badan lahaa iyo walaalnimada in kala socdaan oo kala saartaan Soomaaliya aad ku isticmaaline Soomaali Djibouti waa aragtaan Soomaali Kenya waa aragtaan Soomaali Ethiopia waa aragtaan Soomaali Italia Soomaaliya anaga Somaliland baan dhibaatada ay geysay iyo foolxumada ay geysay naganama wakiilna ma aha dadka Soomaaliyeed raaliidka yihiin wadamada Carabta shaqiiqnayo gaar ilaa Sacuudiga waa dad aan walaalanahay xumaan oo dhaxaysa ma jirto insaan loo galana oo dadka iyagoo dawlad ahayn waxaas oo lacag siiseen waxaas oo tababar siiseen maanta taayid ku abaal gudayna war ka xunay lama qaybsan marka waan raalaan ka nahay ceebtaasna waa ceeb ku kooban madaxda siyaasiyiinta ee maanta ka talinaysa Soomaaliya amba ha noqoto Garowe haato isku xidhaynay laakiin kuma jirnaano waan taasaan ka raaligelin baan ka sameeyay injineer Faysal Cali Waraabe sidoo kale waxa uu ka warbixiyay socdaal muddo 5 maalmood oo ugu maqnaa wadanka Ethiopia arrimaha dalkeenu maan u tagay wixii noo qabsanay wax Soomaaliland faa'iido ah weeye iskana ka shafi mayno wax ka salama ka shifo laakiin guul baan ku soo dhamaaday dana Soomaaliland baan u tagay insha Allah ta'ala ana arrimahaasna waa arrin wanaagsan baan soo qabnay madaxweynaha waxaan ku booriyay inuu isna safar culus oo ku tagaa marka madaxweyne ra'iisul wasaare uu sameeyo dawladdiisa haddii ay dhaho inuu markiiba isna tagaan jeclaa delegation fiican si loo adkeeyo xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia ee soo jireenka ee jaarnimada rajooyinka high expectation ra'iisul wasaare qodobada fiican buu qabtay daraato xishiriyay diblomaatskii deganaa Ethiopia oo ku jira safiirkeeni ku jiro markii horeysay hadda safiirkeena meel kasta oo safaarada lagu casuumaa waxaad aragtaa kor loo qaaday statuskiisii gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu nasiib darro ku tilmaamay hadal boqor Cismaan oo Maxamuud Burmadow uu ka jeediyay degmada Carmo ee Puntland oo ku sheegay in la kala qaado ciidamada Somaliland iyo Puntland ee isku horfadhiya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool والله أرنتها سؤال حلوة إنه يلعب بقرموده يلعبه waxay u joogaan ciidamada ma jirteen ay u joogaan ciidda Somaliland ma arko oo halka ka ilaalay inuu ciidamada dalkoodii joogay ilaaha ka noqda meel meesha qabata deemaha foolxumeed isagu ma rayigiisu u cabiro marka waxaan leeyahay kuma habooneen Cismaan boqor Cismaan kuma habooneen inuu iyagu aqli celiyeed Morgan baa jooga shacabka garaacay disgusting wax laga xishooday way moogtay intaad maqnayd
waxa jira dad la xukumay oo dhalinyaro ah oo qaar inan abwaanada oo dadkaas inta badan waxa loo xukumay fikradaha ay ku hadleen mise oo dhinaca Facebook ay ku shaaciyeen saad u aragtaa xariga faraha badan sidoo hore aan sheego waxaan yiri qofka waxba ahayn baynu ka dhignay hero inta yar tagta xamar iska muraaqootay qabla xabxabka in horta laga dhigo hero ma inan yar baa la xiriyay in ba hadal tani ma ahay waynu gudayna hagaagsan oo inuu keenaa achievements waynu keenaa laakiin inaan ku meersano inan yar iyo ma aha marka waxa weeyaa hablee caruurtii waxaan leenahay dalka waxa loo soo dhintay dhibaato loo soo maray wala isku keen xiri jiray xuniyo xun kale oran jiray xabaalihii baa yaala nabadan ay haysataan laguma imanin laablaka marka iyaguna mad aragtay wali inan yar oo reexamar oo inoo ooyso tiri Soomaaliya wala laayo ooyso markay maxay inaga wixii ka dhigay bilaa micna iduguna dhalinyarada bilaa micna joojiya dawladuna waxa ay qof bilaa micna oo aqli yar inay wax weyn ka dhigto oo sharflo تمام حرق ما بيستاهلان إذا ما يكون حكى دكتان هي روح دكتان هذا يحمر شيء ده هجوكتو حين جسوا دونيسا هل كهاي كسوها يستاهل مي جوكتو هاي ممكن يكون عليا حسن سليمان هارون قلايد تلفزيون كهون كيبل هرقيسا